horyaalka Soomaaliya ilaa heerkiisa saddexaad ayaa muddo badan xiran waxaana taasi dhibaato ay ku tahay ciyaartoyda rajada iyo mustaqbalka kale kubadda cagta Soomaaliya. kooxaha badankoodu waxay leeyihiin sponsors laakiin haddii kooxahaasi aysan dheelin kulamada horyaalada iyo koobabka maxalliga ah waxay wajihi karaan dhibaato dhaqaale. si la mid ah ciyaartoyda ayaa iyaguna mushaaraadkooda dhib ku iman karaa. kadib iscasilaadii Cabdiqani Siciid Carab xiriirka kubadda cagta ma lahan gudoomiye rasmi ah ee la doortay. waxaana wali jira isqabqabsi hoose ee xiriirka ah taasoo dhaawac ku ah horumarka kubadda cagta Soomaaliya. xulka qaranka xiriirkiisa kala duwan waxaa ku soo wajahan kulamo iyo tartamo badan balse haddii ay horyaalada wada xiran yihiin waxaa adkaan doonta in macallimiinta xulka ciyaartoy ay xushaan. sidoo kale ciyaartoydii jecleed inay xulka matalaan ayaguna ay waayaan fursado ay isku muujiyaan maadaama horyaaladii ay xiran yihiin. ciyaaryahan walba oo banooni ciyaaro meesha ururka ka ciyaaro gudaha ka ciyaar dibadda wuxuu jecel yahay inuu dheelo horta qarankiisa wadankiisa inuu matalo waaye marka qof walbana wuxuu yigsanayo waxa waaye inuu qaranka ciyaaro. horta caqabad adag ay ku tahay maadaama macallimiin laakiin maadaama hadda xiriir cusub dhashay oo maxaa lahaa waxa rajaynaynaa wax inay isbedelaan oo macallimiinta maxaa lahaa arkaan iyo dadka maxaa lahaa qaranka xulaayo ciyaartooyda gudaha ee wadanka gudihiisa imaadaan sidii yani ciyaartooyda dibadda looga soo xulo oo loo indheeyo in ciyaartooyda gudaha loo indheeyo oo maxaa lahaa wixii hore wax laga bedelo insha Allah saas aan rajaynayaa. sida la filayo doorashada xiriirka waxaa la qaban doonaa November balse su'aasha ayaa ilaa November ma xirnaan doonaan horyaalada. si u wanaagsanaado mustaqbalka dhow iyo midka fog ee kubadda cagta waxaa habboon in la helo jiil cusub oo matala xulka qaranka iyo xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya.